Bismillahir Rahmanir Rahim. Duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idaacada kulan duhurkaan idin haysa waxaa kamid ah maamulka Galmudug oo sheegay in ay dhaqan gelin doonaan qabashada lacagta shilin Soomaaliga shacabka iyo culimada Hargeysa oo ka hor yimaaday kaniisada laga furay magaalada Hargeysa wasiir Islaaw oo Jowhar kaga qayb galay shir lagu heshiisiinayo beelo dagaalamay waa maalinimo Isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 31 bisha July sanadka 2017 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka ugu door corona warka waxa soo saaray Cabdi Fataax sidoo uu qod anigoo Qaasim Qanciye ayaa idin la socodsiin doona u diyaar galow dhageysiga warka duhurnimo ee kulan nadwo maamulka Galmudug oo sheegay in ay dhaqan gelin doonaan qabashada lacagta shilin Soomaaliga Cabdi Daahir Xuseen Cali wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka Galmudug oo la hadlay kulan nadwo ayaa sheegay in fadhi ay yeesheen wasiirada maamulka Galmudug in ay isku afgarteen in la socodsiiyo lacagta shilinka Soomaaliga ah isagoo inta raaciyay in wareegto cad oo qusaysa ganacsatada ay soo saari doonaan arinkaasi cidii ka hor yimaadana talaabo laga qaadi doono wasiir ku xigeenka ayaa ugu baaqay ganacsatada ku dhaqan gobolada dhexe in ay u dhiiriyaan shacabka masaakiinta ah ee ku nool deegaanadaasi waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in si dhaqsi ah loo socodsiiyo lacagta shacabka iyo culimada Hargeysa oo ka hor yimaaday kaniisad laga furay magaalada Hargeysa wali shacabka culimadiinka ku nool deegaanada maamulka Somaliland waxa ay walaac ka muujinayaan muddo 30 sano kadib kaniisad laga furay magaalada Hargeysa qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ayaa ka soo horjeestay in kaniisad laga furo magaaladaas waxa ayna tilmaameen in ay tahay ayaan daro isla markaana sheegay in aysan u dulqaadanaynin in maamulka madaxda Somaliland ay ogolaadaan in kaniisad laga hirgeliyo magaalada Hargeysa shacabka arintaasi ka soo horjeestay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan horta halkan ka soo jeedinayaa oo aad u la yaabanahay inay qaran jab tahay aangeedna lagu soo gaban waayo madaxda waxa loo doortaa meesha loo geeyay waxa u dhaarteen kitaabkan ay ku dhaaranayaan waxa weeyaan in dalka iyo diinta daacadu yihiin waayo waa ayaan ramaanta la yiraahdo madaxdiiba fasax siisay kaniisad saas daraadeed xaq ma aha waana wax runtii diinta ka soo horjeeda waana cambaarayna mana ogolin in kaniisad laga fuliyo ama laga muxuu hirgeliyo wadanka diinta islaamka in aad loogu gargaaro weeyanagu ma nihin gaalo kaniisad shaqaynagu kuma lihin waxayna laga qabto wixii kaniisad dhisaya wax ninkan waxa soo socda waxa jooga garanay waxa soo socda ma garto way maanta marka kaniisad la furo leeyahay tii hore la hagaajinaya man maqlayado leeyahay oo wax maxay tii hore la hagaajinaya waa la sameeyay ma waxay tahay hadii maanta la sameeyo maxaa ka dambeeya waxa inuu missionaries-ki daaciintina yimaadaan faafinay iyo masaakiin dadkeena dan yarta ee markii hore baahidu ragaadisay ee abaaruhu ku dhaceen in looga faa'iideysto deedna maxay tahay baahida jirta awgeed hadalka shacabka ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor maamulka Somaliland ay soo dhaweeyeen in laga hirgeliyo kaniisada magaalada Hargeysa warkii oo aad kala socoteen kulan nadwo waa naga inta warka waxa soo saaray Cabdi Fataax sidoo u kun anigoo Qaasim Qanciye ayaa idin la socodsiinayay iminkana dhanka iyo farsamada